ururada dooda saxaafadda ee qaar ka mid ah wariyaasha Muqdisho ayaa maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in si kordhay tacaddiyada ka dhanka wariyaasha ay ka mid yihiin dilalka, xariga, anjabadaha, cadaalad darrada joogtada ah ee lagu hayo saxafiyiinta Soomaaliyeed. Ogayaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed SDS Cabdallah Muumin oo ugu horeyn ka hadlay goobta waxa uu eedayn u jeediyay madaxtooyada Soomaaliya waxaana uu sheegay agsimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo mar walba maran habaabin ku sameeyo tacaddiyada ay dowladda u geysatay saxafiyiinta Soomaaliyeed. waxa uu tibaaxay in wariyaashu ay shaqo joojin sameynayaan haddii ay sii socoto tacaddiyada lagu hayo waxaana uu tilmaamay inay u cadaalad doonaan maxkamadaha caalamiga. waxaan rabaa inaan halkan ka xuso nin la yiraahdo Cabdinuur Maxamed Axmed oo ka shaqeeya madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo caadeystay inuu hor istaago cadaaladda, caadeystay inuu hanjabaado iyo handadaad kala duwan isagoo ka faa'iideysanaya awoodda xafiiska madaxweynaha u diro suxufiyiinta qaybahooda kala duwan ee ka shaqeynaya warbaahinta kala duwan, caadeystay inuu awoodda dhibanayaasha aan fahamsanayn sharciga uga faa'iideysto fahamsanaan la'aanta ay sharcigu fahamsanayn. mar walbana wuxuu hor istaagaa in cadaalad la marsiiyo dadka dila ama dhibaatada u geysta suxufiyiinta. dhacdadii ugu dambeysana waxay ahayd markii dhibaato loo geystay wariye ka tirsan Shabeelle TV oo uu Facebookiisa ku qoray kana tirtiray saacado kadib 4 bishan aan ku jirno May oo screenshot-ka aan hayno meelna uu noo yaalo inkastoo isaga uu tirtiray oo Facebook iska tirtiray laakiin aan leenahay dad wax kaydiya. ogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed Fajid Maxamed Ibrahim Macallim ayaa ka hadlay xariga wariye Maxamed Cabdiwahaab Abuuja waxaana uu sheegay in aan laga warqabin xaaladda uu ku sugan yahay ayna dalbadeen in loo ogolaado in la soo arko wariyaha. ilaa iyo waqtigan maanta aan hadlayno in Abuuja uusan helin wax sharci ah, wax cadaalad uusan helin. marka laga reebo warqad yar oo 2 baaragraaf ku qoran tahay wasaaradda warfaafinta ay soo saartay oo la leeyahay ninkan waxaan ku eedeynaynaa shabaab. ninkan waa la yaqaanaa wariye uu ahaa idaacado kala duwan oo ka shaqeynayay ilaa hadda cid dambi ku soo oogtay malaha. marka waxaan la yaabanahay sababta sharciga loo baalmarayo. madaxweynaha isla maalintaas aan hadlaynay wuxuu soo saaray xeer oo maaragtay aan iraahdo wuxuu aad Twitterkiisa ku qoray inaan loo isticmaali doonin laga shaqeyn doono in dib loo habeeyo inaan wariyaasha maaragtay aan loo isticmaalin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. waa ku mahadsan yahay hadduu intaas gartay laakiin maxaaba gaarayo xeerka ciqaabta qofkii hadiiba la haysto 7 cisho oo aan wax maxkamada la keenin waxa laga xukumi doono maxay taraysaa.